Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 22. In our today's lesson, we are going to learn conversation 22 out of 100. And as usual, we have A as the first person and B as the second person. But before we start our today's lesson, let's just look at our today's proverb, which is all that glitters is not gold. All that glitters is not gold, of which we are going to discuss its meaning at the end of this lesson. To know the meaning of this proverb, please watch the video till the end so that you will get the meaning of this proverb. Ardayda qaaliga ha ku soo dhawaada Moonlight Academy kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 22aad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa wada sheekaysiga 22aad. Sida caadada inoo ahayd, mar walba waan qaadanayno wada sheekaysi waxaa laga maarmaan ah laba qof. Labada qofna waxaan u qaadan jirnay mid A midna B. Laakiin intaan casharka bilaawin waxaan qaadan doonaa hal mahmaahdaasi oo ah all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Macnaha mahmaahdan waxaan ku qeexi doonaa dhamaadka casharka. La soo casharka bilow ilaa iyo dhamaad si aad u fahantid macnaha mahmaahdan iyo casharka oo dhan. Let's start our lesson. Do you watch football matches? Do you watch football matches? Do you watch football matches? Do you watch madawata football matches ciyaaraha kubadda cagta? Do you watch madawata football matches ciyaaraha kubadda cagta? Yes, I am very fond of soccer matches. Yes, I am very fond of soccer matches. Yes, I am aniga very fond of waxaan aad uga helaa. Marka ereyga fond of macnaheedu waa ka helid. I am aniga very fond of waxaan aad uga helaa soccer matches ciyaaraha kubadda cagta. I am very fond of waxaan aad uga helaa soccer matches ciyaaraha kubadda cagta. Which is your favorite team? Which is your favorite team? Which is keebaa your favorite kan aad ugu jeceshahay team kooxda. Marka haddii aan isla wada fasirno waxay noqonaysaa which is your favorite team? Kooxde ayaad ugu jeceshahay mise kooxda aad ka heshid waa kooxde. Which is your favorite team? Kooxde ayaad ugu jeceshahay. Which is your favorite team? Favorite waa midka aad ka heshid. Among all waa midka aad ka heshid ayaa la yiraahdaa favorite. Which is keebaa your favorite kan aad ka heshid team kooxda. Which is your favorite team? Kooxda aad ka heshid waa kooxde. I support Arsenal. I support Arsenal. And you? I support Arsenal and you. I aniga support waxaan taageeraa. Support waa taageerid. Waxaan taageeraa Arsenal. Arsenal ayaan taageeraa. And you? Adiguna. I support waxaan taageeraa Arsenal. Arsenal ayaan taageeraa. And you? Adiguna. Ereyga Arsenal macno ayuu leeyahay. Marka xagga kooxda aan ka nimaadno macno kale ayuu leeyahay. Arsenal waa koox ciyaartooy ah. Arsenal macnaheedu waa magaca Arsenal macno ayuu leeyahay
macnaha arsenal waa store of weapons waa keydka lagu keydiyo hubka marka arsenal waa keydka hubka laakiin waxaa la yiraahdaa waa magaca koox and you adiguna I aniga support waxaan taageeraa arsenal ayaan taageeraa and you adiguna I don't interest football I don't interest football interest waa xiisayn I don't interest ma xiiseeye football kubadda cagta I don't interest football kubadda cagta ma xiiseeye I don't interest football ma xiiseeye kubadda cagta What is your favorite sport? What is your favorite sport? What is your favorite sport? ciyaarte ayaad ugu jeceshahay sport waa ciyaar nooc kasta ahaato waxaa la yiraahdaa sport What is your favorite sport? ciyaarta aad ugu jeceshahay waa tee What is your favorite sport? ciyaarta aad ugu jeceshahay mise ciyaarta aad ka heshid waa ciyaartee I only like watching Indian movies. I only like watching Indian movies. I aniga only keliya like jeclahay watching daawashada Indian movies aflaanta Hindiga ah. I only like aniga keliya waxaan jeclahay watching daawashada Indian movies aflaanta Hindiga mise filimaanta Hindiga ah I aniga only like keliya waxaan jeclahay watching daawashada Indian movies filimaanta Hindiga ah which were translated into Somali language which were kuwaasi oo translated lagu soo turjumay into Somali language luuqada Soomaaliga I only like keliya waxaan jeclahay watching daawashada Indian movies filimaanta Hindiga ah which were translated kuwaasi oo lagu soo turjumay into Somali language luuqada Soomaaliga We reach the end of our today's lesson, but before we end our today's lesson, let's go back and discuss our today's proverb, which is all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Waxaan soo gaarnay gabagabada casharka, laakiin sida ballantiinoo ahayd waa inaan qeexnaa maahmaahadii aan ku soo qaadanay bilowga casharka maahmaahadaasi waxay ahayd all that glitters is not gold micnaheedu waa wax walba oo dhalaalayo ma ahan dahab macnaha maahmaahadan waa all that glitters is not gold all wax walba that glitters oo dhalaalo is not maahan gold dahab all that glitters is not gold wax walba oo dhalaalayo maahan dahab marka maahmaahadan micnaheedu waa yani shayga kor markaad ka aragtay wuxuu ku leeyahay shay qurxoon quruxdaasi oo dusha ah mise quruxdaasi oo aad ka aragtay kor kama turjumayso quruxda shayga gudihiisa marka shayga waxa laga yaabaa in laga celin waayo oo kula ekaado mid qurxoon laakiin marka aad gudaha aad u gashid mise aad haysatid ayaamo wuxuu kula muuqan doonaa mid xun marka waxaan leenahay all that glitters wax walba oo dhalaalo is not ma ahan gold dahab ma ahan markaan soo koobo waxaan leeyahay be slow in choosing but slower in changing
يعني haku degdegin inaad dooratid shay shayga iska fiiri xitaa ha ahaado mid qurux badan marka shayga iska fiiri haku degdegin inaad dooratid shay laakiin inaad iska bedeshid shaygaasi waqti ha qaato yani shayga aad soo qaadatay maanta inuu kugu raago oo aad haysatid waqti ha qaato yani ha qaadanin shay isla markiiba hadan ha iska tuurin macnaha mahmaahda ayaa ah sidaas all that glitters is not gold wax walba oo dhalaalayo ma ahan dahab do you watch football matches do you watch football matches yes I am very fond of soccer matches yes I am very fond of soccer matches which is your favorite team which is your favorite team I support Arsenal and you I support Arsenal and you I don't interest football I don't interest football what is your favorite sport what is your favorite sport I only like watching Indian movies I only like watching Indian movies which were translated into Somali language which were translated into Somali language This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharkana waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah cabdikariim xasan la soco casharka xiga oo ah casharka 23aad waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu